السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واد سلامتين صاحبي اللمانتينا ميل كستو ad joogtaan magacaygu waa nuur ibraahim cali halkaa igala socotiin waa Al-Nur Academy oo aad ugu barateen barashada luqadda ingiriisiga aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan baranaynaa adjectives sifooyin waxaa laga wadaa wax tilmaamayo sifada shayga qofka ama maxaan ku raadaay waxa marka laga hadlayo. An adjective is a describing word. Adjective-ka waa erey qeexid waay waxbuu qeexayaa. It tells you wuxuu kuu sheegayaa more about a noun in badan oo ku saabsan magaca. An adjective usually appears before the noun it describes. Adjective-ka badanaa wuxuu ka soo hormuuqda magaca uu tilmaamayo ama qeexayo. Sometimes mararka qaarkood though inkastoo the adjective sifooyinka ama the adjective sifaha appears uu kasoo muuqdo ama soo muuqdo after the noun magaca kadib later in the sentence ama goor dambe markii jumlada qoro kadib. waayahay waxyaabaha kale oo aan qaadan doono waxaa ka mid ah adjective-ka qaabka uu u shaqeeyo iyo sifooyinka lagu garto runtii waxbuu tilmaamaya sifo ayuu bixinaya wax kale ma aha. For example halkan waxaa ku qoran a smart dog a smart ah ama a shaxshax ah. So ereyga smart waxay sifaynaysaa dogga waan adjective waay. An old building dhismo qadiimi ah oo oldga ayaa wuxuu yahay markaasi adjective. A tall basketball player qof ciyaarta basketballka aad u dheer so the word tall waa adjective. A busy street wado mashquul ah busy. A dark corner gees mugdi ah dark. A deep sea bad qoto dheer. A large bed sariir ballaaran. It's windy waa xilli dabeeleed ama dabeel ayaa jirto. John's handwriting is very neat. John gacan qoraalkiisa ama fartiisa aad iyo aad ay u qurux badan tahay oo kala baxsan tahay. The sea is rough baddu way kacsan tahay. And all the players are very tall. ciyaaryahaninto dhan way dhaadheer yihiin. The baby's hands are very small. cunuga gacmihiisa waa aad bay u yaryar yihiin. So's drawing is beautiful. So's gabadha la yiraahdo sawirkeeda waa qurux. That problem is too difficult. dhibaatadaas aaday u adag tahay. Better is very quiet today. Better aad u degan maanta. marka dhammaan ereyadan oo boldga ama farta madow ku qoran sifooyin waay. yacni shayga laga hadlayo ayay sifaynayaan. inta badan waxaa waay ama sida caadiga ana waxaa waay adjective-ka wuxuu ka hadlaa noun-ka iyo pronoun-ka ayuu ka hadlaa. kama hadlo the way the action is taking place ama how the verb is done kama hadlo. ficilka qaabku dhacay kama hadlo. haddii uu ka hadlayo ficilka qaabku dhacayo waan gaari doonaa adjective and adverb waay. laakiin haddii noun-ka ama magacyaalka ama magaca uu sifaynayo oo uu wax ka sheegayo ayaa waxaa la yiraahdaa adjective aa lahaa. halka wax ku qoran a low fence derbi gaaban ayaa ku qoran. date-ka ayaa la dhahaa fence sidaas ayuu leeyahay marka. absolutely already waxaa ii soo baxday markaas exercise-kana waa kasii shaqeynaynaa in order to understand how uu u shaqeeyo. Underline the adjectives in the following sentences. wuxuu leeyahay exercise 1-kani hoos ka xariiq adjectiveska ku jiro jumlada soo socoto. There is an empty room upstairs. wuxuu leeyahay qol eber ah ayaa ku yaalo dabaqa kore. marka ereygan empty oo eberka meeshan bold lagama dhigin sababtoo waxaa rabaa in adigina kasoo dhex saartida la rabaa. empty oo eber ah waxay sifaynaysaa qolka dabaqa kore ku yaalo qaabkiisa waana adjective waay. It's a hot summer wuxuu leeyahay xagaayiga waa kuleel badan ayaa jiro ayuu leeyahay. ereygan hot waa sifo wuxuuna sifaynayaa summerkan inuu kulul yahay. yaa so kind adi aad ayaad u naxariis badan tahay. kindigani waa naxariis waxauna sifaynaya you oo adiga ah ayuu ku sifaynayaa. don't be crazy nin waalan ama qof waalan ha noqonin. crazy oo waalan ah ayaa adjective ah. this park is clean and green. qaybtan dalxiiska waa nadiif haddana waxaa weeye cagaar waay. so this waxaa waay clean iyo green labadaba adjective waay.
Many people exercise to keep healthy. Dad badan ayaa waxay sameeyaan and exercise sameeyaan, jimicsi sameeyaan to keep healthy si caafimaad qab ay u noqdaan. So healthy ayaa adjective ah. I think these eggs are rotten. Waxaan filayaa amaan u malaynaya ukumahan in ay soo ureen ama ay soo qurmenayaan filaya. Rotten ayaa adjective ah markaasi. We are all bored and there isn't anything to do. Anagoo dhan waxaan noqonay dad caajisa ee noqonay ama waxaan dareengnay xoogaa micna caajisaan dareengnay sababta wuxuu leeyahay wax la sameeyo ma jiraan. So the word bored ayaa wuxuu yahay adjective. The pupils don't find the joke amusing. Ardadu kama helaan micnaha uma arkaan kaftanka amusing mid farxad leh uma arkaan. So amusing is an adjective. You have to know that. James was absent yesterday. No, James was absent because he was ill. James wuu maqanaa sababtoo ah wuu xanuunsanaa. So absent is an adjective. Ill waa adjective sababtoo ah labadaba sifo ayay muujinayaan. Waayahay. And fill in the blanks with suitable adjectives from the boxes. Wuxuu leeyahay blankiga ama meesha bannaan ku buuxi adjectiveka ku habboon oo boxkani aad kala soo baxayso. Really aad iyo aad ay u fududahay. Let's look at marka. The ice cream is very ice creamka sidaas iyo sidaas waay. It's very in summer xagaaga waa sidaas iyo sidaas. The company is giving away waxay bixinaysa gifts hadiido to its customers macaamiisheeda. They live in a house guri noocaasay ku nool yihiin. Jane is wearing a skirt. Jane waxay xiran tahay ama xiran tahay goono noocaasi ah. The climbers are climbing up a mountain fuulayaasha ama dadka korayaasha waxay korayaan buur sidaas iyo sidaas ah. These puppies are very caruurta eega aad bay sidaas u yihiin. Many people have no home. Dad badan guryo maysan. So very easy kan koowaad aan fiirno marka. The ice cream is very ice creamka waxaa waaye sidaas sidaas waay. Marka waxaan soo qaadanaynaa sweet ayaan soo qaadanaynaa. The ice cream is very sweet. Ice creamka aad buu jalaatada aad bay u macaan tahay markaasi. Markaasa waxaan leenahay markaasi it's very hot in summer. Hodaan soo qaadanaynaa xagaaga kuleel badan ayaa jiro. It's very hot in summer and the company shirkadda is giving away waxay bixinaysaa. So here I'm going to take this free gifts hadiido bilaash ah to its customers macaamiisheeda ayayna siinaysaa. So next waxaa waaye they live in waxay ku nool yihiin ayaga in a large house. This large house guri weyn ayay ku nool yihiin. Jane gabadha la yiraahdo is wearing waxay xiran tahay ama is wearing waxay xiranaysaa a short skirt goono gaaban ayay xiranaysaa. So short I have used the short here. Look short ayaan isticmaalay. The climbers leedahay are climbing up a high mountain. Dadka korayaasha ama dadka meel korayo waxay fuulayaan a high mountain buur sare. So look at this high. I'm using high for this number 6 question or number 6(1). These babies we know babies are the small babies of the dogs. Eeyaha caruurtooda lahaa babies. These babies are very playful. So look at here playful way ciyaar badan yihiin. Aad bay u ciyaar badan yihiin. Are very playful. Okay, tan ugu dambayso waxaan leenahay many poor people have no home. Dad badan oo fuqaro ah ma haystaan guryo ma haystaan. Waa hagaag. Halkan waxaan eegaynaa adjective endings. Adjectiveka nooca dhamaadka ah ama adjective oo qaybta dambe ereyga sifada ku sameynaya jiro. Marka qaabkaasi ayaan eegaynaa. Adjectives have different endings. Adjectiveska waxay leeyihiin dhamaadyo kala duwan. Some adjectives end in full or less. Qaarkood sifooyinka waxay ku dhamaadaan full ayay ku dhamaadaan, qaarna less ay ku dhamaadaan. So full waa in a positive way, lessna waa in a negative way waay markaasi. So homeless people dad guri la-aan ah, dad guryo la-aan ah ama dad hoy la-aan ah. And playful babies eeyo ciyaar badan. So lestani waa negative oo dadkan guryo ma haystaan. Fulltana waa positive way
eeyaha aad bay u faraxsan yihiin ama caruurta eeyaha way faraxsan yihiin. dhanka kale waxaan leenahay a beautiful dress, labis aad u qurux badan. A careless driver, darawal oo taxadar aan lahayn oo maxaan ku dhahay dayac badan. A faithful dog, an ay iimaan badan. A harmless insect, cayayaan aan micnaha dhaawac lahayn ama aan dadka hadduu qaniiniyo ama aan waxba qaniinin. A useful tool, tool waxaa way faa'iido leh ama shay waxaa way faa'iido leh waay markaasi. Okay, and an adjective and sifaha that end in less, ka oo ku dhamaada less, is the opposite of the same adjective that ends in full. waa lidka isla adjectivekii oo ku dhamaaday full ku dhamaaday. For example, tusaale, careful taxadar badan, careless aan taxadar lahayn. Colorful midab leh, colorless aan midab lahayn. Useful faa'iido leh, useless aan faa'iido lahayn. Harmful wax qaniini kara ama wax dhaawici kara, harmless aan wax dhaawici karin. The full ending means having a lot of something. For example, haddii full ku dhamaado waxaa laga wada wax badan ayuu leeyahay oo micnaha qani baa wax badan uu ku yahay. Painful, xanuun badan. Having a lot of pain laga wada xanuun badan leh laga wada. Hopeful, rajo badan. Having a lot of hope, rajo badan leh. The less ending means without. Haddii less oo ku dhamaadana, the less meaning, the less ending means without. Haddii less oo ku dhamaadana waxaa laga wadaa everywhere. For example, tusaale, leafless aan caleemo lahayn waxaa laga wadaa without leaves aa laga wadaa. Sleeveless aan gacmo lahayn, fanaanadaha gacmo gaabka lah, without sleeves. waa hagaag, really very easy and very important to understand. Some adjectives, sifooyinka qaarkood, end in waxay ku dhamaadaan markaasi why ayay ku dhamaadaan. Dirty street, wado wasaqaysan. A noisy room, qol buuq badan. An oily pot, digsi saliid badan. A sleepy passenger, rakaab hurdayo. A sunny day, maalin qorax ah ama maalin kuleel ah. A stormy sea, bad duufaan ku kacsan tahay ama ka kacsan tahay. A muddy bath, wado dhoobo badan. Some adjectives, sifooyinka qaarkood, end in ive ama eve ayay ku dhamaadaan qaarkood. For example, an expensive necklace, katiinad qaali ah ayaan leenahay. An active child, cunug firfircoon. An attractive heart, koofiyad soo jiidasho leh. A creative toy, bombolo waxaa way si hal abuurnimo leh loo sameey. A talkative pupil, talkative pupils, arday ama arday war badan waay. A talkative pupils, arday war badan. Some adjectives end in ing, qaarkoodna waxay ku dhamaadaan ing ayay ku dhamaadaan. For example, wuxuu leeyahay a caring nurse, kalkaaliye caafimaad oo daryeel leh. An interesting book, book xiiso leh. Loving parents, waalidiin oo jecel yacni ka muuqdo ama la jeclaan karo. Matching clothes, dhar isleh waay. dabcan matching clothes means isku color ah, uniform oo kale ah. A smiling face, a smiling face, weji dhoo la cadaynayo. A cunning focus waxaa waay dawaco maxaan ku dhahay oo active ah ama firfircoon. A dazzling sunshine, iftiinka qoraxda aad zaa'id ku ah. kan waxaa way extremely bright way, aad u dhalaalayo. ereygan dazzling ayaa la yiraahdaa. So very important way really. Some adjectives, sifooyinka qaarkood, end in ly ayay ku dhamaadaan. A costly diamond ring, faraanti diamond ah oo qiimo sare ku fadhiyo. An elderly woman, haweeney waayeel ah. Lively kittens, yacni caruurta waxaa la kittens, yaanyuurta caruurteeda la. So caruur yaanyo oo yaanyuurta ilmaheeda oo maxaan ku dhahay nool amaba se waxaa way ka muuqato nool. A lonely boy, wiil keligiis ah oo micnaha cidlo fadhiya. A lovely girl, gabar la jeclaan karo ama gabar maxaan ku dhahay maxaan ku qaabkaas leh. A weekly magazine, wargeys toddobaadle ah. A daily newspaper, warqad jaraa'id oo iyadana toddobaadle ah. A friendly police officer, sarkaal boliis oo weji furan oo saaxiib lala noqon karo. waxaa kale uu ku leeyahay many other verbs, ficil kaabayaal badan, also end in ly ayaa ayaguna ly ku dhamaadan. Here are some adjectives with ending, kuwa waa adjectiveyaal oo ku dhamaada apple ku dhamaada, al ku dhamaada, en ku dhamaada, apple ku dhamaada ama
I ish ku dhamaado, os ku dhamaado, ama I waa ous ku dhamaado, ish saa u taqaano ku dhamaado. Sorry. marka wuxuu leeyahay this is marka qaababkay ku kala dhamaadaan ayuu ku tusaya. A broken chair, kursi jaban waay kan. A famous pop singer, heesaa caan ah. And childish behavior, dhaqan caruureed. A comfortable chair, kursi raaxo leh. A dangerous place, goob halis ah. A foolish act, fal dabaalnimo ah. A horrible smell, ur qaab daran oo dhib badan. A lovable color, and maxaan ku dhaha kaalo oo la jeclaan karo. This is a noun, okay, or a name. A national costume, dhar dhaqameed ama dharka dhaqanka. A musical instrument, qalab music. A terrible mess, isku dhex daadsanan waali ah. A woolen sweater, jacket suuf ah. A wooden table, miis maxaan ku dhahaa alwaaxa. A poisonous snake, mas waxaa waaye sun masiiba leh ama dadka sumeeya. wahagaag halka waxaa ku yaalo markaasi exercise 1 kale ama exercise kale. And add the correct ending to turn these words into adjectives. wuxuu ku leeyahay ku dar dhamaadka saxda ah si uu sax u noqdo. So let's look at siday noqonayaan markaasi. marka qaarkood waa why, qaarkood waa full, qaarkood waa less, qaarkoodna maxaan ku dhahaye waa al. So qaababka ay noqonayaan ayaan isla eegaynaa iyo sida ku soo baxayso ama qaabka ay noqonayaan. So let's look at marka aan fiirino marka. Peaceful ayaan leenahay tan nabad badan. marka full aan ku darayna tan peaceful. So peace iyo peaceless iyo inta ma qaadanayso. Peaceful, amaan ah. Stormy waayaan ku daraya, duufaan ah, dabeel badan leh. Muddy waayaan ku daraya, dhoobo ah. Forgetful, hilmaan badan, full aan ku daraya. Spotless, aan wax spot aan lahayn ama wax oo dhibic ma laha micnaha. ergan spot dhibic waaye ama bar waxyaabahaas loo isticmaalaa. marna belays laakiin hadda maaha. 6 kan waxaa waaye dirty, wasaq waaye, waayaan ku daraya. Musical, aan ku daraya, music ah. National, wadanka uu leeyahay, aan ku daraya. Dusty, waayaan ku daraya, boor badan. Playful, ciyaar badan. Absolutely qaabkaasay u shaqeysaa marka ayadan. mid kala soo bax markaasi cajiib. Exercise 2 wuxuu ku leeyahay marka add the correct endings to turn these words into adjectives. Exercise wuxuu ku leeyahay ayagana sidoo kale dhamaadka saxda ku dar. kankii hore wuu ka duwan yahay en, ish, y, nous, ing iyo ly lagu kala darayaa. So wind, dabeel waay, windy aan leenahay, dabeel ah, hal waayaan ku daraynaa. Gold, dahab, golden, aan ku daraynaa. Friend, friendly, iska ilaali, ly aan ku darayaa. Rot, rotten, aan ku darayaa, laakiin double t noqonaysaa si xasuuso. Danger, dangerous, ous aan ku darayaa. And fool, foolish, ishtaan aan ku darayaa. Charm, charmless. ergan charmless aan soo jiidasho lahayn ayaa laga wadaa, iska ilaali. waa unattractive waay. Child, childish. Laugh, lovely, ly aan ku darayaa. Interest, interesting, ing aan ku darayaa. marka cawada halkan ayaan kusoo koobayaa casharkeena oo ka hadlaya adjectiveska. dabcan waxaa jiri doontaa qayb labaad oo aan uga hadli doono adjectiveska si aanan videoga u dheeraan. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.